si loo horumariyo adeegga jidadka dawladdu waxay dejisay barnaamijyo iyo qorshayaal kor loogu qaadayo adeegga isku socodka jidadka oo dubdhaxaad u ah dhaqaalaha dalkeenna deegaanka Soomaalida ayaa ah meelaha ay baahiyaha badan ee dhanka jidadku ka jiraan hase yeeshee isbeddelka kadib waxaa jira door ay bulshadu ka qaadanayso horumarka si loo xaqiijiyo barwaaqada aanu higsanayno halkani waa tuulada Durdur waxa ka socda dhismo jid oo lagu hirgelinayo ka qaybgalka bulshada jidkani waa 18 kiiloomitir oo si cusub loo dhisayo iyo 18 kiiloomitir oo dayactir lagu samaynayo guud ahaan waxa ku baxday 3.5 milyan oo bir Durdur waa tuulo hoosaad laga maamulo bolol oo ka tirsan degmada Harawa waxa ku xeeran buuro waaweyn oo go'doon ka dhigay tuuladan tuuladan intii ay jirtayba waxa ay ka goonayd halka laga maamulo ah bolol oo ka tirsan degmada Harawa xilli dheer iyo sanooyin badan oo Durdur ay daruuraha u bannaanayeen maanta waxay gaadhay himilooyinka ay higsanaysay waa kan gudoomiyaha degmada Harawa oo ka hadlaya qorshaha ay qaateen ee ku aadan duwan karna wadadani waxay isku xiraysaa qabale hoosaadka Durdur iyo qabalaha bolol oo uu ka tirsan yahay qabale hoosaadka Durdur markaas wadadani waxay ahayd wadaratan boorta dhinaca niga xigta meel aan weligeed la marin wadana ayna ka suurta gelin horta muddo 30 sano ku dhowba wadadani dibteedu dadka shacabkaaday aad iyo aad ay u saameysay islaanta umulaysa ama tabugta ee qabale hoosaadka Durdur joogta waxa halkan lagaga qaadi jiray rarab waxa lagaga bixi jiray kadabta had aragteen ama Soomaaliland meeshii dhakhtar ugu dhowbaa la geyn jiray qof kasta oo ay dhibi ku dhacdo in rarab lagu qaado mooyaane ma ayna jirin in gaadiid loo adeegsaday cirka un baa u bannaanaa meel kale oo dhulka ah oo la mari karaa ma ay jirin intaas kadib bulshada ku dhaqan gudaha qurba joogta iyo mas'uuliyiinta degmadu waxa ay bilaabeen wareegii koobaad oo ah in la baneeyo buuraha oo xitaa xoolaha ku adkeyd inay isku daba maraan marka loo soo socdo dhanka goobtii oo lagu soo wareegi jiray degmada Aysha dhibaatada shacabka ku haysatay halkan waxa kamid ah hooyada ma taqaana u baahan dhakhtar ama emergency in ambulance joogta goobta ay u soo qaado waxa dhacaysay in looga soo wareego degmada Aysha taasi oo marmarka qaar inta wareegga lagu jiro hooyada xaaladeedu ay halis galeysay marka maalinkan aan soo kormeernay qabale hoosaadka Durdur waxaan la kulanay shacabka ku dhaqan ama ku nool qabale hoosaadka waxay markaa nooga warbixiyeen xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin iyo dhibaatada ay ku hayso wada la'aantu marka shacabkii aan wada tashanay kadib waxaan ma taqaanaa go'aansanay maadaama oo miisaaniyad degmadu ayna u haynin in abaabulka iyo ka qaybgalka shacabka wadadan lagu dhisto maamulka degmadu waxa ay wadeen baraarujin joogto ah si bulshadu uga qayb qaataan dhismaha jidkan inkastoo muddo dheer ay shacabku baahi u qabeen isku socodka jidkan haddana wajiyadooda waxa laga dareemayaa farxad iyo raynrayn waxayna gaareen mid ka mid ah himilooyinkii ay muddada dheer naawilayeen waxaanu u nimidnay jidkaasi haddii la ku reeyo la dhisayo ee ay isku xilqaameen maxaa yeelay shacabku annaguna maaragtay go'aan ku gaarnay inaan qayb ka noqono
oo aanu deeqdii u horreysay maahe tii labaad aan maraynan hadda keenno marka waxaan ku dhiirigelinayaa dadka deegaanka ee qurba joogta iyo ku qolqol joogta la fahantoodaba in iyaguna ka qayb qaataan oo si degdeg ah ugu soo jawaabaan baaqa annagoo reer Kanada ah waa markii labaad ee aanu deeqdii labaad keennay maanta in guddoonsiinay maalintaan mid dhulkan aan joogno waxaan joognay waddadeed waa la soo dhaadhay halkan layna malayn marnaba laakiin maanta markaan arkay waxay ila noqotay yani bani aadamku hadduu yidhaaho waxbaan samayn in la samayn karo maanta ilama ahayn inay suurtagalayso laakiin maanta markaan arkay ayaan realize gareeyay in waxani la samayn karo in fact waxay sameeyeen waxana maaragtay la malaynayn markaa annagu qurbo joog haddaan nahay sidaa uu sheegay cali markii labaad nimaad weeyaan waxaan haynana de kale waan ku taageernay muddada micnaha dhibtii shacabku marka ay istaagi weyday qaab aan uga baxnana aan weynay muddo imika ay inaga xigto hal bil waxaa halkan aan iskugu imanay guddoomiyaha degmada Harawa wuxuu yidhi inagu ka degma ahaan iyo ka dadweyne ahaan aynu tashanno oo ka qaybgalka xoogga shacabka aan ku samaysanno waddo ayuu yidhi waan ku aqbalnay marxaba ayaan nidhi sidii baanu ugu tallaabsannay waddadii cagaf baan soo kaxaysannay wixii xoog dad u baahnaana waan gelinay wixii xoogga dadka ka awood badnaa ee aanu dadku qaban karayna cagaftii baan gelinay fayskii koowaad alxamdulilah rabbil caalamiin iminka qofka macnaha bolol joogaay daqiiqaduu durdur ku tagayaa qofka durdur jooga ee dhibi ku heshana meel alla meeshii loo baahdo daqiiqadaa macnaha lagu geynayaa iyadoo oyna waddada ay hadda dhammaystirnayn oo fayskii koowaad ay tahay oo kii labaad iyo kii saddexaad baa uu noo hadhan yahay macnaha tan hadda labadaa taayir waa dhiig joojin ahaan si dadku adeegga uu iskugu joogsado oo qofkii dhibi ay hayso loogu gurmado weeye ujeeddadeedu fayskii koowaad baa sidaa maanta wixii ka horreeyey noo dhammaaday fayskii labaadna waa taa cagaftii maanta joogta ee bilowday insha allah waxa aan rabnaa inaan sideedii aan dhigno inta Itoobiya jirtayba waa waddadii koowaad ee waxa weeyaan durdur iyo bolol oo la isku xidho waddadii koowaad ee marta weeyaan taana waxa mahad ilaahay baa leh aanu nisbaynaynaa oo isla shaqada iyo waxa way fulintaa waxa leh guddoomiyaha degmada Harawa iyaale iyo guddoomiyaha santarka Gotti Abdullaahi Faamis fikirkii in kasta meeshan macna kolba fikir soo maraba kumida dhalama ahaan jirin laakiin fikirku ugu dambeeyay qaateen bay ku fishay xag Allahna ka fishay meeshan markaan dhibaatada ka warramo anuu durdur baan ku dhashay maanta 62 sano iga dhiman baan malay 58 sano jiro waxaan ku dhashay durdur socodka durdur iyo bolol wuxuu ahaan jiray 5 saacadood iyo bar baa loo socdaa markay lugta maanta waxa loo soconayaa 20 daqiiqo waxla waxa jirta dhibaatada halka ka dhacday dadweynuhu adeeg inaa loogu tago maxaan idhaahdaa Soomaaliland mooyaan Itoobiya way kala go'naayeen qofka umusha laga qaado awr halka 10 jeer baa ko tira mala inta dad ay kadartaa durdur ama awrkii baa la kufay ama way ka dul dhacday ama wayba ku dhimatay loo odhan jiray نص كوبك ما تنا إلى هاي ما دلو أمبلاستي باقوي ما نسا درد وحي عريامي سي وضلعانتو أذا جيد دردر أي هلي لهاي هداي وحبرشت هاي هداي عاصمات هاي هداي بيت هاي نوع كستو أذا جوحوي كان بالشدة يتوقع إليه هاي دردر وحا كعريامي سي وضلعان باك عريامي مركا guud ahaan shacabka Harawa waxay ku aayihiin ama mataqaana lagu yaqaan oo ay ku sabtay yihiin waxa weeyaan iska wax u qabsan wadadana ma aha tii koowaad ee isku xidha mataqaana laba qabale ee afurno waxa jirta wada kale oo iyadna isku xidha Darunaaje iyo Waraqa oo iyadna ka qaybgalka iyo abaabulka shacabka lagu furay wadadaas oo iyaduna mataqaana labadii wareego laga wada qayb qaatay oo la dhameystiray
wadada aan wadnaana waa wado maartay shacabka loogu talagalay inay adeeg u fududeyso muddo badan ay dhibaato ku haysay taasi waxaas leeyahay waxay maartay ay u fududeyn kartaa ama u fudin kartaa kulli waxyaabo fara badan oo accesskii meesha ka socday oo marka hore maartay loogu talagalay inay dhamaystir oo wax ka dhinaayeen bay sii dhamaystiri kartaa ka degmo ahaan iyo maamul ahaanna waan soo dhaweynaa qurba joogta u dhalatay maartay degmada Harawag markaa si guud haddii aan maartay wax ka taabto dhibaatada maartay halka waagii hore jirtay bolol iyo way kala go'naayeen durdur qabalaha durdur la yiraahdo markii ay gudoomiyaha degmada ama maartay maamulka degmada ay wareegayeen qabalayada ay u kowgaliyeen ayaa waxay ogaadeen dhibaatada taala bolol gaar ahaan qabalaha durdur iyadoo oo ay la tashadeen duqeydii iyo odayadii maartay deganaa isla maartay goobta aynan maartay hay'adda ku bilaabeen markii uu horeysay waxa lagu bilaabay ka qaybgalka degmada iyo ka qaybgalka qabalaha maartay bolol iyo goobta isku jira lagu bilaabay dibadeed waxa maartay baaq loo diray qurba joogta degmada dhalatay taasi waxay fududeysay baaqaasi inay iyaguna dhibaatadii shacabka la dareemaan oo maartay iyaguna ka soo qayb qaataan wadadii durdur tuulada durdur oo bulsho badan ay ku nool yihiin ayaa ka faa'iideysatay isu-tashi bulsho mas'uuliyiinta ugu sareysa gobolka Faafan xildhibaano mas'uuliyiinta degmada qurbajoog qaybaha kala duwan ee bulshada waxay si wada jir ah uga wada qayb galeen farxadda xaridka jarka jidkan waxaan maanta halkan u joognaa inaynu xariga ka jarro jidka isku xidha gogti iyo qabalaha durdur ee hadda joogno qabal hoosaadka durdur jidkaas oo isugu jira qayb dayactir ah oo 18 kilomitir ah iyo qayb dhismo cusub ah oo 18 kilomitir ah isugeyn jidkaas oo 36 kilomitir ah oo ay hirgeliyeen qurba joogta u dhalatay degmada Harawag gaar ahaan aaggan hadda aan joogno runtii waa jid baahi weyn shacabka halkan degan ay u qabeen qabal hoosaadkan oo degmada inteeda kale ka goonnaa oo dhul aad u dheer oo degmada ay shacab ka mida looga soo wareegi jiray waxaan maanta shacabka la qaybsanaynaa farxadda ay ku faraxsan yihiin inaad toos santarka gogti iyo maaragtay durdur maanta ay isku xidhan yihiin oo jidkaasi uu inoo dhammaystirmay farxadda iyo shucuurta idinka muuqata ayaan annaguna idinla qaybsanaynaa caqabadda ay nagu haysay waad la socotaan dhibaatada shacabka ay ku haysay waad la socotaan waxaanan aad ugu faraxsanahay in maalinkii u horraysay booqashada aan ku imiday qabalaha durdur inaan uga soo wareegay degmada eeshaca gaar ahaan qabalaha dayac maantana waxaa ilaahay mahadiya oo aan ku faraxsannahay in ilaahay nagu simay in aan bolol toos uga soo baxno oo aan qabaleega durdur waxaa soo baabuur ay toos u soo galaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay dadaalada xooggan ee ay sameeyeen maamulka qabalayada gogti iyo bolol iyo shacabka mataqaana qabalayada ka soo jeeda iyo qurba joogta u dhalatay degmada gaar ahaan qabalayadaas oo iyaguna kaalin mugle ka qaatay oo la'aantood waddadani ay suurto gasheen ana raba halkan inaan uga mahad celiyo jidkan isku xidha bolol iyo mataqaana qabalasaadka durdur dherarkiisu wuxuu dhan yahay 18 kilomitir oo aan xarigga maanta ka jarayno kaasoo ay ku baxday adduun lacageed oo dhan 3 milyan iyo 500 oo kun oo bir lacagtaasi oo ka kala timiday isku tashiga iyo abaabulka shacabka qabaleeyadaa soo sheegay iyo qurba joogta ka soo jeeda qabaleeyadan oo kaalintii ugu muhiimsanayd ka qayb qaatay madaxdu markay dadkooga kasbadaan waxay wanaagay la jeclaadaanna ilaahay u sahlaa waa labada guddoomiye dhinacyadeeda jooga iyaga intii la sii shaqaynaysayna mar haddaan labadooda u mahadnaqay iyaguna way mahadnaqan yihiin dhaganuglaan iyo isjacayl bay ku maamulaan dadka taasaa sababtay waddadan inay furanto markaa kuwii dhulka joogay iska daaya kuwii qurbaha joogay baa amarkooga qaadanaya ka dhigan tahay markaa dadku sidaa inay iskugu tashadaan oo la isku duubnaado ayaan ka xildhibaan ahaanan ku dardaarmaynaa meesha halkaa unbaa u bannaanayd halkaa cisamadaa unbaa u bannaanayd waad wada ogtihiin aasaaskii bini'aadmiga uu ku noolaanayay
micnaha waddadaaba kow u ah waxaan odhan doonnaa dawladdu maxay qabatay awal lama odhanayn durdur kolka la yimaado dawladdu maxay qabatay lama odhanayn waayo waxaan loo odhanayn halkeen loo soo maray umbaa lala way xidhantay soo maa laakiin maanta ma xidhaaha uma furna taariikhda maanta inoo qoro oo wixii maanta ka dambeeya iyo heer degmo iyo heer gobol iyo heer kililba muxuu ka qabtay la odhan doonaa oo lagu xisaabtami doonaa iyagana waxa aan leenahay tallaabada allaha ku asturo sababta maanta halkan aan joogno waxaa lahaa guddoomiyaha degmada harawa sababta wax waliba qadar buu ku yimaadaa qadarka sababtaa maanta intaa ummadahan isugu imannay waxaa lahaa guddoomiyaha degmada harawa oo hadda garabkayga taagan oo isaga oo ka soo wareega Ayshaca oo halkaa maray noqday guddoomiyihii koowaad ee intuu halkaa aan joogno gawaadhiga dhigtay halkan buu kulligeeyo durdur buu tegey markaa uu durdur tegey wixii uu soo arkay ayuu goobtii noogula yimiday taabaan go'aankii aan qaadanaynay aan ku qaadannay inaan dhaqaaqno awal maamulkii hore ma karnay odhan jireen laakiin qodob ka duwan buu keeno waa karnaaya waan karnaadii waa annagaa ku karnay waddadii maanta ku marayna eed baana guushaa iskale marka xiga waxaan mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka faafan iyo ku-xigeenkiisa iyo dhammaan maamulka heer gobol ka yimiday maanta halkan inala joogaan u mahad celinayaa waxaanan u mahad celinayaa waxa ay noqdeen horta maamulkii koowaad ee heer gobol ka yimaada ee buurta ka soo dhaadhacay maanta nasiibkoodu noqdeen macnaha maxay wax u qaban waayeen odhan maayo oo maanta yimaadeen iyagu maanta wixii ka dambaysay wuxuu wax qabada leeyihiin waxqabada wixii maanta ka dambeeyey leeyihiin laakiin iyagu nasiib badnayd ee waddadii gaari ku soo marta ee gobolka faafan ka imata ee durdiisa soo taagtay iyagaa noqday ee gaari afartaayo ku socdo dee macnaha imata diyaarnay inooga midisaiyo saasaan uga mahad celinayaa marka saddexaad waxaan u mahad celinayaa qurbajoogta u dhalatay qabalaha durdur ee maanta joogo durdur markaan leehay waa meeshii wax laga qabanayay macnaha intii durdurun ka soo jeeday maa dhammaan intii ka qayb qaadatay ee hirkiga joogtay weeyi waxa aan sheegaynaan u mahad celinaya waxaan si gaara ugu mahad celinayaa nimanka saddexda nin ah حسن علمي أرأي يبي كليه جيب عاقل حسن عيد يعني الثاني هم على هود وين قاف كمر ريبة يكوى كله معناه ويكدنا البنايم بالله كوى كله صدق هذا معناه ويكدنا البنايم بالله هاي كوى كله وحلينا هاي هدد علاني يقول oo tallaabada halka ay maalinta hore gaarsiiyeen kor ha uga sii yar qaadaan baan leenahay waxaa kaloon u mahad celinayaa qurbajoog iyo qolqoljoog midaan ku sheega haddeer waan garan waaye nimanka boorama jooga ee tolka halkan u dhashaya nimanka ugu tallaabo adkaabay haayeene tallaabada u adag nala qaaday kolkaa waxaa loo badiyay xagga qurbajoogga maadaama ay somalilan weyn laakiin kuwa badan oo etoobiya ayay ka wadanisan yihiin waana boqolkiiba boqol aad baan iyagana ugu mahadcelinaya soomaalida timida iyo gebi sargaaladood salaahan laban iyo samiya khayr ku waara waa salaamtii sawdkii kaleete waa waraalow cabdila
كايدين ترى الردوتا ولا أدوكي صدر يا إبنك ولد ولا عمري يا غدر يا إبنك ولد حسيس كان بريء في مطوار وعود لي ضايع علمك بكرفدا كرفدا وعلى عليني وعلمدي تلكي وانت تليانكي بكاري ويا يوكتغي تبقرون وبقاوكي قرب مرين تلابك قد يتصبب الله مرا يالو تلادي سطير براي نوغيه si loo